والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قيبتان وقيبت لباد درسي هورة قيبتي سلباد إن شاء الله حاسكي جوا نارسيسست. marka insha Allah waan ka soo hadalnay darsigaas waxaan sheegnay calaamooyin oo qofta maaragtay oo xaasidada ama qofta oo narcissistic ah oo laga helo insha Allah wali hadda waxaan ku soo jirnaa calaamooyin kale inaan sii sheegno sidii maaragtay oo wixii maaragtay waadax loogu noqdo oo qof wali maaragtay uu fahmo qoftaani qoftay tahay iyo maaragtay danta ay leedahay waa maxay. وانا شيغني علاموين كماركتي المرأة الصالحة نات حاسة ماركتي او صالحة او إلهي سبحانه وتعالى كعب سنيسو صفات كيدنا وان شيغني درسي هور ايام خصوص شيغني يعني ماركتي اني كذا قرب استاغتو اني مطيعات اي تاهي اني قف باري اي وتاهي نين كذا او ماركت في السراء والضراء اني نين كذا قرب تاغن تاهي علاموين كاسو دن waxa way waan kusoo sheegnay مثال ahaan waxaan u qaadanay Khadija radiyallahu anha markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam qaar Hira oo maaragtay waxiga uu kusoo dagay oo guriga yimid sidoo xaalkiisa ahaa sidii radiyallahu anha ay u garab istaagtay marka waxa waaye sida aan la socono yani qofkani noloshaada wuxuu u soo galay waa hadaf ayuu leeyahay hadafka uu leeyahay waxa waaye in oo adiga maaragtay oo nolosha uu kugu xumeeyo nolosha inuu kugu xumeeyo waxay u soo galaysaa noloshaada inay adiga meesha nolosha kugu xumayso yani waxa waaye waxaan waan sheegnay walaalayaal daruus horna ku soo sheegnay waxaan ibliis qofkaani ibliis ayaa la shaqeeyaa waa ibliis naftiisa oo socdo waa laana illa ay hadda ma aragtay culamaa an-nafs waxay ku wareersan yihiin qofkan dhaqankiisa dhaqan bani aadam ma noqon karo qofan oo maaragtay aan dareen lahayn qofan waligiis aan qof jeclaanaynin jecel oo dhan waxa la yiraahdaa ma taqaano waxay jeclaanaysa male danteeda fiirsanaysa waa very selfish person waa qof oo anaani ah waa qof ayda danteeda kaliya ka fikirayso marka waxa waaye calaamooyinkan yani waxa waaye waa calaamooyin oo qofka bani aadamka maaragtay laga helayn macquul ma aha qofan dareen lahayn macquul ma aha qofan naxariis qabin معقول معها قف جعلانين يعني قف كان وحواي وماشين وروبوت او كل ويسعوتا درين ماله وحي بابينيس اي بابينيسا ايدو الكا كو عدينيس اي هلفا كو قاديسا marka waxa waaye ayaga naftoodu way ku wareereen cilaaj uma haayaan markii la daraasayna ma aragtay yani waxay yiraahdeen qofkan qof bani aadam ma aha marka anagana waxa waaye inaan maaragtay maadaama anaga ruqaan nahay dadka quraanka saaro oo dadka cilaajiyo qofkaana waan ogahay inuu waligiis iimaaneen inuu waligiis aan dhihin kaale xaaladeeda fiiri inuu soo waligiis dhihin kaale quraan isaar waxa waaye waa qof isla weyn oo isdhahay aniga quraanka waan aqaana maxaa quraan laga saaraa war macnaa jirin maxaa iga maqan aan maxaa dadka agagaarkiisa oo joogan oo familigiis ahna way la socdaa inuu qofkan wax ka qaldan yahay wax inuu ka qaldan yahay way u jeedaan laakiin asigii ayaa qof oo mucaanid ah aan ogoleen in la garab qabsado marka waxaan waxa way badanaa waxa u badan yihiin nimanka ragga laakiin dumarka way leeyihiin dumarkan waxa waaye dumarka markay ay saan ay yihiin sifaadkan mise ibliis oo jirkooda soo galo oo ibliis qaata iyadoo dhan nin 10 nin ayay u dhigantaa laana dibka ay gaarsiinayso familiga ayaa ka weyn ninka wuxuu dib oo familiga gaarsiinay 10 nin ayay u dhigantaa liire yani waxa waa damage weyn ayay familiga ay gaarsiinaysa qofka haday ninka rag haday naagta ay ku xumaato waxa waa dib weyn ayaa ka soo gaaraya waxa waa ka soo kabshadada waa ku weynaanaysa inta uu ka soo kabsado marka maxaa calaamooyinka laga helayo qoftaani waa maxay insha Allah iska sii galno insha Allah waxaad ku arkaysaa qoftaani xanuunkaaga ayay ku raaxaysanaysaa way ku farxaysaa laakiin kuma tusinaysa adiga dareemi maysid in ay qoftaan ay niyada ay ka faraxsan tahay marka ay ku aragto in adiga ma aragtay dib ku jirto
dhib inaad markaad ku jirto ay ku aragto aad iyo aad ay ugu farxaysaa mana dareemaysid laakiin adiga ma dareemaysid ninka ma dareemayo naagtiisa inay ku faraxsan tahay waxay kaloo aad ku arkaysaa markay aragtay inay ayada ay ku controli karto aad ugu farxaysaa yacni waxaan ka wadaa markii iyada hadalkeeda ay kugu socodsiiso markay kugu socodsiiso oo sida ayada ay rata aad samayso adigana lilaahi kaa tahay qoftaani waa xaaskayga waan garab qabanayaa ayada laakiin waxa waaye hadaf kale ayay leedahay waxay rataa in adiga ma aragtay under control ku jirnaato oo khadkaas inaad ka baxda marato iyada marka ayada waxa waaye farxad ay ku dareemaysaa markay aragto in adiga wixii ayada ay rata aad samaynaysid ayadan waxay leedahay يعني dadkeedii iyo asxaabteedii iyo ma aragtay waxay leedahay war ninkaan aniga faraantii oo kale aan ku haystaa ninkaan waa dibi waxaan dhaho ayuu yeelaya يعني iyada gadaashaada maqaarkii ka siibaysaa ninkeeda maqaarkii ka siibaysaa karaamaday ka qaadaysaa dadka dhan ay u sheegaysaa inuu yahay qof dibi ah qof aan waxba fahmaynin inuu yahay ay dadku sheegaysaa يعني waxa way sumcadiisa ayay meel aga dhacaysaa marka asaga waxa waaye waa dhaqankiisa saane waa qof iska maskiin ah waa qof qalbi furan iska dhaaf xaaskiisa dad dadow ayuu caawiyaa marka asaga kama aha dibinimo kama aha daciifnimona kama aha laakiin ayada saas ay u fasirinaysaa waxay leedahay ninkaan ma aragtay aniga ayaa gacanta ku haay waxaa kaloo ay dareensiinaysaa mararka qaarkood inuu qof muhiim uu yahay ayay dareensiinaysaa markuu asaga uu dareemo in ay qoftaani xoogaa yar qadka inay ka baxday oo ma aragtay usluubkeeda isbedelay dhaqankeeda inuu isbedelay markuu arko waxay dareensiinaysaa in oo ma aragtay asaga qof muhiim uu yahay cunto fiican u karinaysaa sariirtii u furaashaysaa gurigay waxaa ku sidaysaa cuud ما شاء الله way soo dhaweynaysaa ninka wuxuu isleeyahay ما شاء الله qofti ما شاء الله maanta maxaa iska bedelay iidan waxay aaminsan tahay waxaaba ka dhaadhacsan guurka oo dhan inuu yahay guri nadiifis iyo sariir firaash iyo cunto karis ma aha agteeda kama aha mucaamalada ee ninkeeda la mucaamalayso inuu waxa ay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan jaceelka ninkeeda ay tusinayso iyo farxadda iyo naxariista ee ninkeeda ay tusinayso inuu waxaasoo dhan ka wan yahay ma aaminsan laana ayada nafteeda isma jeclo insha Allah darsiyan kasoo samayn doona arrintan dadkan maxay saan ugu dhaqmaayaan gabadhan maxay saan ugu dhaqmaysaa oo maxay u tahay qof ma aragtay dadka kala nacab dadka ugu dhow ay nacbanta dadka ugu dhow ay jecesha inay lugaha ka goyso ay carab tirto واي سببت اساس وسمينا سمعت ان شاء الله وان كاتلي دونا باذن الله الكريم اسبابت ايدد كان سان يهين قفتان اي سان او تahay ان شاء الله marka qofka ninka waxay dareensiinaysaa inuu qof muhiim u yahay marna waxay dareensiinaysaa inuu wax qiimo uusan lahayn waxay sameynaysaa ilmaha hadday leedahay mise gabar hadday leedahay war nin Soomaali waliga ha isku guursan nin dhanha ma aragto oo saan oo kale adoogiinsa uma jeedsoo yahay gabadheedii waanaysaa way baxaysaa TV-gay daaraysaa ilmaheeda waxay tusinaysaa waa kuwa oo ma aragto western kuno way baxaysaa waxay tusinaysaa Soomaaliya video ka tusinaysaa meelaha ugu xun ayay dooranaysaa ilmahay tusinaysaa soo uma jeedin meelo aabiin oo qiime meeshana idin dambeyntoona nin Soomaali hadaa guursatiin saan ayad ahaan doontiin nin Soomaali waa madax adag yahay nin Soomaalida oo dhan ma aragtay ilmihii waxay ku abuuraysaa nacayb ay wadankooda u qabaan ayay ku abuuraysaa iyo nacayb oo diintooda hadduu nin oo wadaad u yahay waxay arkaysaa waxay u dhaysaa mujeed adoogiin waa qof oo wadaad ah arag soo dhaqankiisa u yahay waxaana ka xanaajinaya mararka qaarkood waa iyada musmaaray ku duraysaa hadalay ku tuuraysaa ninkii waa xanaaqaya hadal baa ka soo fakanaya wax buu sameeynayaa reaction ayuu sameeynayaa ilmihii hoos ay ka leedahay soo uma jeedin aabihiina soo yahay nin wadaad waligaa ka dhawaan ilmihii marka wuxuu ku abuuraysaa cugdad
ilmihii wuxuu ku abuuraysaa cabsi aabahooda ay ka cabsanayaan ilmihii markay weynaadaan waxay bilaabayaan inay aabahooda xataa ay ixtiraamaan waxaa kaloo aad lagu arkayaa inay qof damac badan ay tahay ma dhargeyso maanta oo dhan isii ayay ku jirnaanaysaa damaaca waa wax waliba oo adiga jeebkaaga ku jiro waxay rataa inay ayada gacanta ay ku dhigto ayay jeceshahay waxaa dhib kale ka haysto ma taqaano sida lacagta loola dhaqmo lacagta sida loo kala sarrifo ma taqaano lacagta ayay aad ugu dheedheelaysaa lianna qofkaani culamaa an-nafs waxay yiraahdeen qofkaani waa qof ma aragtay oo 5 jir oo kale ayay u dhaqmaysaa 5 jir 6 jir meelahaas 7 jir ayay u dhaqmaysaa ma taqaano sida lacagta loola dhaqmo iyo wax loo sarrifo ma taqaano lacagta hadday maanta ay qaadato berito waxba gacanta kuma hayso waxaa kaloo lagu arkayaa alkadib almutacamid beenta ma aragtan waxay u tahay sida hawada oksijiinka oo kale yani waxaan macno lahayn ayay been ku sheegaysaa iska dhaaf wax weyn horta been way ku sheegaysaa laakiin waxaan macno lahayn ayay been ka sheegaysaa مثلا waxaad leedahay koobkan iyo halkan saare waxay ku leedahay akhay aniga ma saarin ayadaana saartay wax been laga sheegay miya way dhigi kartaa koobkan anaa miiska saaray maxaa dhibay maya waxay ku leedahay maya aniga koobka waxaas aniga ma saarin ma uu qofka saaray waxaa kaloo lagu arkayaa ma taqaano inay ay ma aragtay qaladka iyada ay gasho oo lagu qabtay inay qofka ay tiraahdo I'm sorry ma taqaano apologizing ما تقان الاعتذار ما تقانو دائما وحواي waxay ku leedahay aniga maxaan ku raali gelinaa aniga ma baqaldanay aniga ma aragta aniga dood ayay kugu furaysaa doodana markay kugu furto waxaad arkaysaa wixii arinta yareed wax weyn ayay noqonaysaa maalintaas guriga ma aragtay buuq weyn ayaa ka dhacayo marka waxa waay ayada badanaa waxay jeceshahay inuu guriga daa'iman oo ahaado guri aan deganaanshaha ida aad ayay u dhibsanaysaa guri degan ma jeclo waa inuu wax jiraa maalin kasta hadduu maalin kasta uusan jirin waa inuu isbuuc kasta jiraa hadduu isbuuc kasta uusan jirin waa inay bil kasta wax bamba weyn inay guri ku dhacdo wax weyn inuu yimaado waa waxa kaliya ay ku nooshahay waa enerjiga iyada ay qaadanayso waa waxyaalaha iyada ka farxinaya maadaama iyada ay tahay qof unhappy ah qof oo murtaax aan ahayn qof oo ma aragtay oo miserable ah oo nolol aan haysanin nafsiyan dakhiliyan ka haysa wax kasta gaari inay haystaa dhici kartaa shaqo fiican inay haysaa laakiin inside waa empty ever ayay ka tahay xiqd iyo karaahiya iyo xasad ayaa ka buuxo marka iyada waxaas ay iyada dareemayso waa inay dadka guriga joogaan ay dareemaan marka nolol oo peaceful ah kuma noolaan karto nolol oo amaan oo salaamo leh kuma noolaan karto waa inay wax ay create garayso waa inay wax abuurtaa sida gurigaas maalintaasi dadka oo dhan joogaan madax ay ku socdaan guriga oo dhan waa qasmaya marka waxba waa waxyaalaha ay ku nooshahay distraction dadmiir baabi'i waxaad baabi'in kartid waa baabi'is waxaana ka wadaa nafsiyan ayay qofku u dilaysaa adoo taagan ayay kawkaasiinaysaa waxaa kaloo lagu arkaa wax walba ayada wax kasta oo gurigaas ka dhaco oo qalad ah ninkeeda ayaa u sababa ayada always she is the victim waxa waay iyada waa qofka bari ah qofka madluumka ah qofka laga qaldan yahay waa iska maskiin ah meeshaasi oohin beenbeen ayay ku galaysaa dadkay ka dhaadhacsiinaysaa in laga qaldan yahay ayadaana waxaasoo dhan ka dambeeyey waxa guriga qasaayo oo dhan waa iyada marka waxa waay qaladka oo dhaca maaragtay waxay qoorta u gelinaysaa ninkeeda ayay qoorta u gelinaysaa marka waxa waay waxay bilaabaysaa oo kale inaysan nadaafadeeda ku dadaalin waxa qolka ay gasho wallahi qolka ay gasho markay ka soo baxdo urka ka baxay waa yaabas iska dhaaf iyada jirkeeda iyada qolka ay gasho waxaad dareemaysaa oo qolkaas oo uraay iska dhaaf jirkeeda nadaafadeeda kuma dadaalayso waxa mala wax la yiraahdo calaaqa xamiimiya wax oo deep connection mala laha ninkeeda yani markuu xataa uu tagaayo ninkeeda way ka jeejeysanaysaa oo lama qaadanayso waxaad dareemaysaa ninka ma aragtay inuusan asaga naftiisa oo dareemayo inuu qoftaan oo qasbayo oo kale ayuu dareemayaa marka waxa waay wuxuu ku noolaanayaa nolol aan raaxa lahayn nolol aan jacayl lahayn nolol aan ixtiraam lahayn nolol oo ninkaan oo ma aragtay qiimo loo yeelayo guriga dhexdiisa oo qiimo oo ku leeyahay male waxaasoo dhanne gadaashiisa ayaa laga sameynaya asaga wax uu ka ogyahay male
wax oo ka ogyahay male waxa waa qof iska lilaahi ah waa qof oo daacad oo qalbi furan daa'iman yadunnu an-nas bil khayr dadka oo dhan ma aragtay iska dhaaf familigiisa dadka oo shisheeyaha ah ayuu khayr ka filinaya khayr ayuu ka filinaya marka waxa waaye waxaa dhacayo in oo ma aragtay qofkaani si fiican loo baabi'iyo oo si fiican dhulka lala galo ha noqoto nafsiyan ha noqoto maadiyan ha noqoto jisadiyan jiraa ku dhacaysa sokor cholesterol wadna xanuun wuxuu arkayaa lacag meel uma dhigmayso wuxuu arkayaa nafs murtaax ma aha habi ma aha uu dareemayo wax inuu ka qaldan yahay wixii oo dhanna waa secret ilaa maalin maalmaha ka mid ah oo wixii banaanka soo dhaco oo leeyahay wax u dhiibatay markaas ayuu indhaha kala furayaa qofkaasna maalintuu indhaha kala furo waxa waaye waa maalin oo ma aragtay oo lagu dhakal dhamaanayo laanna waxa waaye qofkan wax badan ayuu ma aragtay sacrifice u soo sameeyay sacrifice tadxiya badan ayuu soo sameeyay wax badan ayuu ka tanaasulay intaas oo dhan ayuu sabrayay laakiin markuu jeesto waa adkaanaysaa in oo ma aragtay la soo celiyo marka gurigiisaas ayuu ku baaba'aya laanna waxa waaye culamaa an-nafs waxay leeyihiin dadkaani oo ma aragtay oo xaasidiinta narcissista ah guurkooda ma raago maalin ayaa lagu kala kacayaa ama qof kala degan jirro ayuu dhamaanaya jirro kama baxay saas ayuu ku dhimanaya marka waxa waaye nolol raaxo leh nolol oo happy ma aha waxa waaye iska dhaaf asaga ilmihiisa xataa ma aragtay damage weyn ayaa gaaraya marka insha Allah darsiga gaabnaa saas ayaan kusoo gabagabeeyay subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum